السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسن داودياشا قيمها يقدرتها لقى مدن ميل قصو دوليدا كجوكتان قصو دوادا عد ماجين نتويك داوديال وحنا لنا هي رمضان كريم كل عام وانتم بخير. waxaan daawadayaal insha Allah taala maanta idin soo diin doonaa muuqaalkii ugu horeeyay bisha barakeysan aan idinku talagalnay waana muuqaal ku saabsan barnaamijkeeni wax ka baro diinta islaamka. hadaba daawadayaal barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa qayb su'aal iyo jawaab ah. hadaba daawadayaal daawasho waxaan ku soo dhawaada. su-aasha koowaad waxaad sheegtaa magaca malaga suurta afuufaya oo ka mid ah malaa'igta. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa Israafiil. su-aasha labaad waxaad sheegtaa geedka ka baxa jahannama bartankeeda. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 waa saquum. su-aasha saddexaad waxaad sheegtaa macnaha magaca Jibriil. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa Jibriil waa adoon sida uu isku fasiray Ibn Cabbaas radiyallahu anhu. shanaad waxaad sheegtaa masaajidka salaada lagu tukado ay u dhiganto ajarka cumro. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa masaajidka Quba. talixaad waxaad sheegtaa meydka xalaasha ah. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 way ka dhacday. jawaabtu waa meydka xalaasha ahi waa ayaxa iyo kalluunka. toddobaad waxaad sheegtaa dhiigga xalaasha ah. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa dhiigga xalaasha ahi waa beerka iyo beeryarada. su-aasha sideedaad kuma ahaa ninkii dakhray nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii Uhud. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa wuxuu ahaa ibnu qimma. su-aasha sagaalaad kuma ahaa yahuudigii nabiga calayhi salaatu wasalaam sixray. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa Lubayd binu Acsam. su-aasha tobnaad waxaad sheegtaa ninkii jebiyey dhoosha nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii Uhud. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jawaabtu waa Cuqba bin Abi Waqaas. intaas ayaynu daawadeel kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena qaybta labaad la soco insha allahu tacaala intaynu ku kulmi doonaa barnaamijka mid lamid waxaan iskaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.